caasimada qalbiga tahee tuulooyinka hawo caroon heestan bandhiga hadalba mise waa arrin kale oo siyaasadeed haddii aad rabto inaad ogaatid muuqaalkan ayaan kugu sheegi doonaa in soo falo garay muuqaalka laakiin inoo saar asxaabta jecel inay ogaadaanna u sheer garay qaar badan ayaa u fasirtay dhan siyaasadeed isla markaasna waxa ay ka dhigteen caasimada qalbiga inay tahay Muqdisho halka tuulooyinka kalena ay ka dhigteen inay yihiin maamul goboleedyada fartaas ku fiiqan kuwa maana fiiqina yani maamul goboleedyada jira inay ay tuulooyinka ka wadaan haddaba haddii aad arrinku sida u booday saaxiib offset khaldanaad ku jirtaa ka soo bax xaliim adiguna offset khaldanaad ku jirtaa ka soo bax arrinku sida baahan sida aniga ku maqlayna waa in uu yahay arrinku yani caasimada qalbiga ee tuulooyinka u caroon nin yani shukaansanaya marwadiisa koobaad isla markaasna marwada koobaad ee uga shakisay in ninkaas uu la shukaansanayo gabdho kale sida diladeed waxa uu leeyahay fanaanka jira waxa uu leeyahay caasimada qalbiga tahee tuulooyinka hawo caroon oo tuulooyinka waxa ka wadaa gabdhaha kale يعني gabdhaha kale ay uga shakisanta inuu shukaansanayo sida diladeed hadii aad si kale u fahanto muuqaalkaas oo aad islaheed caasimada Muqdisho ka wadaa tuulooyinka kalena oo goboleedka ka wadaa siyaasadda dhinacaas naga dhiga dhan kale oo fasirana xaliimo هاي سكلنا وقفصرتان dadka qaar laga yaabo inay u fasirtaan dhin yani 3 xaas qabo ama 4 xaas qabo ama 2 xaas qabo ay dhahayaan caasimada qalbiga tahee yani gabadha koowaad guursaday tuulooyinka u caroon 3 xaas kale dhiman oo la jeedo sida diladeed xitaa positive kaas oo u sirfa kartiin oo u fasiri kartiin laakiin marnaba siyaasadda u bedelina haddaba haddii aad ogaatay macnaha guud ee heestaas qaybtaas oo ka badan wax ku dhahdaa thank you saaxiib